aba ku dhihi doona aba naagta iga fur aba naagta igu dar siba ku soo wada كذي ما قال باستر واي جاد كان حطوا جاد دينيه القران كي يقانو ما شاء سحروني الله ماشي ما بدي شاء الله ما شاء وعيريورت الله ها حبيبي مغازي انا قران ya اسمريا سحرولا جاد محكمتنا سحرولا هذا بوقتها سحرولي وعيري انا يرد عقب سحر صحيح يا بيري oo hadda AJ kaale AJ judge kan ma rabo miya nin dhaho aba nin dhaho ma rabo كاس ya كاس لك كاس لك AJ جاد كان كلمة ربع كنت إنه abdi siida واسقف تمين AJ بعد برسول حواي هرتوري AJ brother هرتوري محكمة ومد لو باهنا لكن AJ هل السؤال أكو قبا AJ ايه ما أنت محكمة aad galayso oo mujtamaca dhibka badan oo Soomaaliyeed ee caawaad ku dhawaaqdaan horta waxa uu wacay maxkamadda sinaanta iyo cadaaladda ما شاء ayaa lagu الله magac daray waa magac muhiim magaca consideration ku sameeyay tixgelin si sinaan iyo cadaalad اجيب ay هاي maxkamadda ku كونسيدريشن salaysan tahay ايه maxkamad dulmi kuma salaysna maxkamad kuma salaysna maxkamad ku sheega mataqaana sumcadda bulshada shakhsiyadda looga cayaarayo ama lagu dulminayo yes maanta AJ I know somehow waxaad adigaba waqtigaagii nololeed ee qoyskaagii iyo danahaagii ee nololeed ayaaba kaa badanba marka sidee bay kugu suurtagelaysaa inaad maxkamad Soomaaliyeed ee social media ah inaad maanta waqti aad u hesho miga jawaabi kartaa su'aashaas horta maxkamadan waa weekly waaye maalinta jimcaha keli waaye maxkamadan maalin jimcaha keli 3 hours keli aan leeyahay 3 saac waxaa ii soo dirisiin delegationkii iyo wixii dhan marka ay soo dirtiin waa heenayaa qofka marka aan soo qabto qofka mood buu galayaa dhalinyaro waxaan soo saarayaa respect leh xushmad leh aan ku caayinin wax qalada kaa sheegaynin maxkamadda waxay tahay nin suxuurolaa maxkamadda geeskeeda ma taagno gabar kuma caynayso wiil kuma caynaayo waa lagu xushmaynayaa haddii dhibaato ku haysatana waa dhuunta lagu qaboojinayaa maxkamad dhul lama nidaam galaysa iyo maxkamadda kala dambeyn maxkamad nidaam iyo kala dambeyn garsoor leh maxkamad kaaliye leh maxkamad guddi leh maxkamad guddoon leh maxkamad ku shaqaysa hab maamuus isdhegaysi leh ayaan kaa filayaa waqtigaaguna ha xadidnaado hana lahaado nidaam ku salaysan sinaan iyo cadaalad Soomaaliyeed aad baan kugu sharfayaa maxkamadan waxay noqon doontaa dadka ka shaqayn doona qabiil walba oo Soomaaliya isku keeni doonaa qof walba qof aan ka soo qaadan doonaa ani qabiilkayga hadda aga jiro ani keliya kaga jiraayo qof kale agama jiraayo qabiil qof kale tan keeni qabiilkaas qof aan Soomaaliya oo dhan ay noqonaysaa AJO kalmadda maxkamadda ay ugu weyn tahay aniga maxkamad baan kusoo barbaaray aabbahay qaaligii ugu sarreeyey maxkamadda badbaadada dalka ee geelle ku xigoo ahaa hooyaday qaaliyadiina qofkii dumaroo ugu horeysay oo loo magacaabo qaali maxkamadeed judge ayay ahayd kaaliye maxkamadeed ayaan ahaan jiray sharciga ayaan hindiya kusoo bartay nidaamka cadaaladda ee justice systemka ee Soomaaliya kusoo barbaaray and I know how it works but this is a social media maxkamadeed waay laakiin maxkamaddu waa inay yeelataa sinaan iyo cadaalad sharciga dhammaan waa loo wada siman yahay ku wada qornaan jirtay maxkamadda marka hadday maxkamaddu ay tahay maxkamad ku shaqaysa dulmi meesha ku dambeysa waan naqaanaa marka walaalow gacliye aad baan ku aqaanaa abti si fiican baan ku aqaanaa walaalahay baa ku yaqaana Seattle kula degan ehelkay baa ku yaqaan ehelkaagaan aqaanaa meesha ka soo jitaa aqaanaa maasha Allah anoo digil mirifla waa lagu dulmiyey walaalkay abtigay ninkii ugu dambeeyay hadlayay digilay mirifle waa dad xadaarad leh sharaf kula mujtamaca Soomaaliyeed dadka ma dulmiyaan waa la dulmiyaa waxa weeye waa lagu gardaroodaa laakiin digilay mirifle waxay leeyihiin xadaarad dheer sharaf leh karaamo leh ay ku karaameeyaan mujtamaca Soomaaliyeed oo kale marka walaalkay hadalku ku yiri in cimaamad ay ku saaraan digli mirfle ay ku yiraahdaan walaalo waa lagu gardarooday naga raalo lagu xaal mariyo ninkii odaga ahaa aan ka fadhinaa meesha aniga
ahaan shakhsi ahaan anoo magacayga ku hadlayo ayaan si gaara kuu raaligelinayaa abtiyow si gaaraan kuu raaligelinaya waa lagugu xadgudbay waa lagu dulmiyey kun jeer raalli ahow soomaalina horseed iyo hormood cadaalad u noqo horseed iyo hormood cadaaladeed u noqo kuna kasbo shakhsiyadaada wanaagsan ee aad hore ugu kasbatay soomaalida oo ah nin afgaaban nin dadka jecel nin dadka u wada siman yihiin nin qoyskiisa qurxoon daryeela intaa ayay soomaali kugu taqaanaa qofka marka inta uu leeyahay calaamada uu leeyahayna cadaalad ayuu dadka kula dhaqmaa marka abtow hore u socon ku leeyahay ha u joojin canaasiirta rushee sunta dhaqlaha ku rushee bifbaf ku rushee waa iska kaftan taas laakiinse qofna ha la tirsan qofna ha lama taqaanaa cadaawad ha u qaadin hore u soco be positive imagine marka waa ku dheerada umaleyna marka raaliga ahaada qeyra inii rajeynayaa I'm greeting from London. I'm coming Seattle, Washington, February next year. Inshallah, I will come to Aquila. I will come Renton. I will come. Inshallah, Abdu Ilahi Rad. inaan soo dhaweeyo dhalinyarada digli miraflo oo leba qada u sameeyo aan la hadlo aan la sheekaysto aan isla hadalno ciidamada is saarno aan isku colo ficnaan diyaar ah wahay aniga wixii hore laakiin isku dhamaatay waana maasanta abti macaane deeqo ninka la yiraahdo cabdul ku socodeen waa ka baxayaa hanad waa siduu sheegay anaa baydhabo ku dhashay anaa aqaano digli mirifle anaa la soo koray waxaan aaminsanahay Soomaali anoona cid kale u gafeenin inay yihiin dadku ugu wanaagsan oo daris wanaaga ah oo dad macnaha aan dhihi karaa maanta dad daris lala noqda inay yihiin dadku ugu fiican ma fahanti masha Allah annaka kooya arlaado baydhabo meelaana ka dhaladay oo dadka si fiican yaanoo garadayna ma fahanti Puntland waa ka soo jeedaa waxaan ahay nin majarteena Umar Maxamuuda Faarax Shirwaca Ree Cabdulla Faaraxa marka haddana meel walba waa degnaa tan kale aan raba inaan meeshaan anigaan ku soo gabagabeeyo AJ aniga waxaan kugu aqaanaa number 1 inaad tahay nin family man ah oo mar walba reerkiisii qoyskiisii waalidkii mar walba ka warhayo waxaa kaloo kugu aqaanaa inaad tahay nin aad u sadaqa badan sababta aan u leeyahay anigii waxaad soo wacday more than what 10-20 times adoo dad lacag u aruurinay dad dhibaataysan qabiil lagumaada aruurinayn meel walba ka kala yimaadeen dad xanuunsan dad agoon ah maaragtay dad lacag loo haysto dad dhibaataysan adoo intaa dadkaas lacag u aruurinay waxaa maanta ku dhaqdhaqaaqaysid oo quruxdan ay ka muuqatana aniga waxaan dhihi karaa waa sadaqada taasna niyaho waa ka daalin aniga diyaar baan ku ahay sababtoo ah dad badan oo aniga ii soo wacday baan ogahay adoo lacag u aruurinayo macnaha ilaahay subxaana wa tacaala waa noo sheegay nabigeena calayhi salaatu wasalaamna waa noo sheegay sadaqada meeshay kaga jirto ma fahanti marka taasna niyaho ha ka daalin oo sii wad waxaad ku nuuraysid oo maanta aad ku degan tahay oo quruxdan kaa muuqato